ugu dambeysay dhinaca aqoonyahanada madaxweynaha muxuu ka yiri waxa iska cad madaxweynuhu wuxuu yiri hadalkiisa waxa kamid ah dad badan oo Soomaaliya aqoonyahana ayagaan war noo hayn oo nasawicin oo xog noo hayn oo talana siin ayayna eedayaan dacayada naga filaan dacayada naga furaan waxaan leenahay hadii intii Soomaali fasarta hadalka sax maaha aqoonyahan Soomaali duusan sharif sida muuqata duusan soo aqoonyahan ahayn aqoonyahan inima aqoon lahayn ninkan aqoonta lahayn inuu aqoonyahan ka dhageysto laakiin aqoonyahanku muxuu eedayn horta sax maaha aqoonyahan كو مد لباد معارض كوالا لين شراك جبت لو قبل دقميه لكن waxa la معارض inuu horumar yahay qofka ku mucaaradayo maxaa la mucaarada laba dhaxe waxa uu ku sheegay la fiiriyaa waana la dhageystaa waxa saxan oo laga qaataa aad baa ma santahay 30 second Abdi Fatah wallahi niyo horta aniga markii aqoonyahanada la hadlayay ma joogin laakiin su'aashaas waxa iga fiicnaan lahaa dadkii goobta wardheer haye runtii aqoonyahanada waxaad moodaa ninka la yiraahdo Yaasiin Garaad baa si fiican u asiibay oo runtii ka sheegay laakiin anigu waqtiga comment waxaan kaga faa'iideysanaya dadkeena Soomaalida ah aan ka gudubno shakhsi nacaybka iyo qabiil nacaybka iyo waxaas aan ka gudubno aan u gudubno qofkii wanaag noo qabto kulliyan aan taageerno hadduu hadda Shariif wax fiican qabto kulliyan aan taageerno hadduu wax qaban waayana aan ku dhalaano 30 second wal anigu waxaan la joogay mar ardayda uu la hadlayay Shariifka madaxweynaha wuxuu yiri waa idin baahanahay waxaan idin kaga baahanahay aqoontiina wax walba diyaar aan la nahay inaad gudaha timaadaan laakiin aniga waxaan dhihi lahaa meeting kan aad noo sameeyeen doodan aan sameeynay hadeertan hal bacad lagu leeyahay noqonaysa wax ka soo qaad ah aanu sameeynay ma jirto nimayo Soomaali hadaan nahay asuiman as media ahaan hadii dadka ay wacdaan wax la taaban karo oo dadkiina ay guryahooda la aadi karaan ay ku fikiri karaan aad baa ma santahay khadka waxa way waqtigu naga dhamaaday waxaan idinka mahad celinaynaa waqtiga nasiisay Yaasiin Abdi Fatah wardheer iyo Liibaan